xisbi markuu igu darsaday waa isbaranay dhalinyaradaas caadiga oo luuqa dhalinyaro badan oo fanaaniin badan ay igu jiraan snapkayga oo walaala aan waligay dhibaato kala kulminin ma fahanti markuu igu darsaday aan macnaha image iyo waxaas isticmaali jirnay maalmaha kamida waxaan ka dalbaday dhar ayuu toli jiray dharkii markaan dharkii baraf baan ka dalbaday 300 aan u diray 300 markaan u diray $300 waxaan ka dalbaday inta shay ay ii goynayso wuxuu igu yiri maalinta dambe abaayo lacagti boosta aaway waxaan ku dhahay lacagti boosta waa iigu jirtay 300 soo ma ahayn maya ma kuugu jirinin okay haye hadii intaas oo alaaba marka sidee marka ii soo dirisay meeqa igu baxaysa lacag badan aan kugu baxaysa laakiin $100 iska soo dir haye baan dhahay waxa dhahay marka dharkii badnaa iska daa dharkaan badan laba shay ayaa waxaan ku dhahay laba shay kaliya iigu soo rid boxka inta kale iska dhaaf maadaama oo boostu ay qaali noqotay labadii shay buu ii soo boost gareeyay oo ii soo diray alaabtii waa helay bas luuqu ii soo dhig wuxuu yiri my birthday after few days waa birthday-gayga haye it's my birthday 2 days and 3 days wax saasa okay marka waxaan ku dhahay waayay addresskaaga ii soo dir I just send you gift baan ku soo diraya bas giftigi baan u diray giftigi markaan u diray adigu giftigi ayaa boosta looga xanibay markii looga xanibay wuxuu dhahay alaabtii way iga xaniman tahay markaasaan dhahay okay alaabta ma ka xaniman tahay haa haye waaye no problem walaal waxa samaysaa ii sheegay waxa samaysaa anaa ku soo diray lacag meeqay kugu baxaysa alaabta ku soo qaadanaysa wuxuu dhahay 500 okay 500 aan u diray 500 markaan u diray ayaa haddana waxa dhacday adigu dhowr beri kadib haddana wuxuu dhahay burgaraam aan qabsanayaa why are you interested lacagtan bixisay marka noo sheeg okay tii hore ganacsi aad dala ka rabtay ha maxaad u caawinay صح tii dambe maadaama dhahay it's my birthday waa birthday-gayga waxaan dhahay gift aan ku soo diraya adiga dareena ku kala miya markaas ha because wax waana dhex marmareen hadallo iyo waxaas waana dhex mareen marka leey giftiga waa ku soo diraya like dad wax naga dhaxeeyo waa nahay walaaltinimo uma ugu direynin ma fahanti okay aniga isaga xiriir waana dhex maray runtii laakiin macnaha dad oo waxyaabo xunxun dhex maray ma ahayn runtii la runta fiican laakiin xiriir walaaltinimo aan ahayn oo laakiin laba qof oo waaweyn dhex mara baana dhex maray sidii ayaa waxa dhacday wiilkii alaabti markaa u diray ala jeclaat markaas ha giftigi yaa u diray giftigi wuxuu dhahay maadaama ay taag lahaayeen Nairobi ba alaabta u diray moogtahay ku boosta ayaa iga haysta waxay dhaheen waa ina cashuurnaa lacagta tan boqol ugu cashuur beero sheegay ay soo alxaasil 500 waa u diray markaan u diray ayaama haddana kadib waa isla hadli jirnay ayaantada wuxuu dhahay haddana okay lacag kala u baahnahay baby waa isaga diray haddana jooji adaa jeclaat labadiin ya adaa jeclaat runtii waxaan niyeystay inaan guursado oo macnaha inaa isguursado oo jacayl asaga naftirkiisa jacayl wuu hayay anna wuu i hayay runtaa fiican bas marka waxaa dhacday wiilkii markay arrinta halkaa noo maraysay ninkan haaruun la dhahaayo iyo shaanshidiisii dadkan shaanshida ah ayaa waxay igu soo qaadeen weerar ninkaana laga masayray markii laga masayray oo weerarka soo dhacay oo maxay ahayday dagaal hooseed iska yimi ayaa waxaan dhahay maalinta soo waxaan ku dhahay waxa baraha bulshada ka dhacaya ma maqlaysaa intuu ila soo hadlay markaas wuxuu dhahay waxa baraha bulshada ka dhacaya waa maxay ahayday ma ogi laakiin maxay ahayday iska dhaaf waxaas wax weyn maahe bas marka sheekadayadii aniga isagu siday ahayd isbedel weyn baa galay after maalintaas wixii ka dambeeyay isbedel baa imaaday isbedelka yimi wuxuu ahaa in uu wiilkii uu igu dheeldeelo macnaha sidii maartay wiiradii oo kaleeto xagga markuu imaado markuu aniga ila joogo waa waji xagga markuu tagana waa waji kale xagga markuu tago Snapchat-ka markuu tago waa waji kale oo laakiin wuxuu itusayaa like aniga isaga inaysan waxba naga dhaxaynin macnaha wisbi way waa wisbi ha then Nairobi waxaan joogay 6 weeks waqti fiican aan ku qaatay meel fiican baan kareysanay
oo maxay ahayd ku taala xaafadan Westcoast waa qofkii Nairobi jooga garanaya dabaq weyn oo Sky Resident la dhaho Sky Resident dabaqa la dhaho ayaan kiraysanay aniga caruurtaydii hooyaday meeshaasaan joogay so alhamdulillah everything waxay ahayd you know lifekayga good ma fahantay I'm a single mom sayfinkayga anaa samaysta alxamdulillah ilma special needs haysta alxamdulillah ilaahay baa bixiya ilmaha xanuunkii caafimaadkaba ii sheegay nin qabo oo wareegaysa oo niman ku hoos dhuumanaysa ma ahi laakiin nimankaas waxaan ka tirsanayaa macnaha runtii in aniga hoos la ii xastay oo la ii qabtay oo nin alaaliya ninkii aan dabco inaan la sheekaysta bal dhahay naagtaasa waa dambiileley wiilal fanaaniinay dambiile ka soo dhigtay oo lugta ka soo xirtay maxay ahayday waa naag oo maana wiifta ah oo iska warwareegaysa in layga dhigo okay teleefankayga hakad baa lagu sameeyay ma fahantay jaaga isku jooji marka aniga soo wacday ayla soo xiray صح marka sheekaysanay marka sheekada ii bilowdo Wispi iyo Harun Leeway waxaan ku dhahay ma waxa tahay gabar ma jeerteena oo laba cunug oo xanuunsan haysata oo autism ma ku dhahay waxa markii u horeysay waxa ay tiri cafwan hal cunug oo xanuunsan ma haysata baa igu tiri hal cunug may waa labo hal cunug haddaba anoo la joogaa soo wici jirta صح markuu kuleeyahay naagaan qabaana naagtaasi naag muu qabine naag joogta Mareykanka ayuu la sheekaysanaya Wispi صح muu saaloo samaahay naagna ma qabin laakiin ani wuxuu igu dhahay habeen asaga iyo Chelsea boy anagoo oo Britoyo hotel joogna yuu saas u dhahay markaasuu lacagta soo dirto arkeen aan lacag soo diris wuxuu dhahay islaantan qof weyn waaye wayna jecesha okay intii marxaati ka ahayd oo Snapchat-ka dhagula socotay inuu xataa ii ooyay oo emotional ahaa ilaahay baa ogaa laakiin ani marxaati wuxuu dhahay lacagtaani mar walba ii soo diray hadda wuxuu dhahay iidoo waxay hadlay no lacagta ma iska diri jirin he asked me to send him okay laakiin marka hadda dhibka asada uu kugu dhacay I'm very sorry maxkamadda waxay ku leedahay sorry waxa kugu dhacay man rabnaa gabar Soomaaliyeed in laga oohiyo inuu dhib ku dhaco qisasna aniga waa la socday Harun Leeway ma ogi macluumaadkiisa ma hayo laakiin Wispi aniga saaxiibanahay aniga la socday ilaa laga bilaabo heesta oo see dareemay xagee maraysa ilaa markaan ka baala wada joogno ilaa Nairobi aan wada aadno ilaa Djibouti aan wada aadno aan wada soconay ma fahmi صح qisas waa ogaa markii dambe oo keenay meesha dhigahdo aniga ammaan inay isiyaan nimankaas iga daba haraan dabadayda ka haraan meel aan taagnaysan istaagin wuxuu dhahay lacag ii soo dir hadana maalintii kaleeto waxay aadeen ma aqaana Mombasa iyo meelay aadeen meel bay aadayeen hees ku soo qabanayeen asaga iyo waxa u malaynayaa wiil kaleeto oo fanaana oo asagan raabista heestaas waqtigeeda dhowr sano ka hor bay ahayd waxa joogay waxa la yiraahdaa Kambalo Kambale ahayd heesta waxa uu ahaa wiilkan oo gudhabaha way magaciisa waxa la dhahaa Chess boy mal dhaha Chess boy bay isla socdeen ana ka wada markaas waa ku shakara inta ka shakara صح marka runtii Donibi may ma ahayn Chess boy ana صح markuu buuraha ku samaynayo qoriga oo buuraha ku samaynayo tuutahay aad marka waxa dhacday lacagta markaasaan lacag u diray hadana $600 mar saddex bas marka wuxuu yimaadaa waa waca teleefanka ma iga qabto maxay ahayd igama soo jawaabo masajyadayda xaggana dheeldheel buu ka wadaa maadaama xagga dagaal uu ka socdo Snapchat-ka iyo dadkii laba group loo kala baxay asaga marka wuxuu iska kay dhigayaa aniga isaga inaan waxba naga dhaxaynin laakiin naag oo ma garanaysaa oo kiis ku socdo kale uu yahay oo laakiin far iyo suul saas isaga qabtay amal baa noqday ani sidii ayaa waxaa dhacday marka go'aan waxaan gaaray inaana lacag dambana u dirinin mar dambana si fiican ula hadlinin aan micnaha aan maaragtay
aan xadkayga aan micnaha aan joogo meeshayda so maalinta dambe isoo message gareeyay haye sidee tahay ma fiican tahay waa fiicanay baahi maxaa isbedelay waxba isma bedelay baa iraadi maxaa iska kaa bedelay waxba iskama kay bedelin waxaan ku dhahay okay ka waran hadaa familygayga habarirta iyo baa jooga Nairobi hadaa familygayga ku baro ka waran aan isguursano wuxuu dhahay aniga walaalay hadaan guursaday maxay ahayday gabadhaydana hadday uuri leedahay macnaha ma geli karo waxna ma haysto okay masaasa haye waayahay baa iri markaan ku dhahay aniga wax yar haysta waana imaan karaa meesha waxaan ku dhahay aan Nairobi imaado ani waa rabay markaas Nairobi inaan tago waana tagay sanadkaas laakiin ismaana arag oo maadaama aan haddana maartay rikaato adu si cilmiyeysan waa garanaysaa qof markuu rabo inuu wax kugu sameeyo laakiin wixiina daacad aysan ka ahayn wuxoogaa adiga maaragtay si wanaagsan uusan kuula hadlayn oo kuula dhaqmaynin mar walbana lacag keen ku leeyahay marka like I feel like you know qof la use garaynayo just user inuu use gareeyo bas that's it marka go'aan baan gaaray marka waxaan sameeyay WhatsApp-kii baan iska bedelay afaariis dhan waa ka baxay I think Snapchat-kiisa xataa I think no Snapchat-ka ma remove garaynin laakiin Snap waxaan iska bedelay WhatsApp-ka iska bedelay waa baxay Nairobi aan tagay walaalkay baa ilmaha ila waday iyo hooyaday xagga isugu wada nimi familygayga Snapchat-kiisa kayga ma soo fiirin Harun leewaay waa kana uu joogiyaa haye uu jooga waa soo saari karaa masha Allah it's good inuu joogo so waxa dhacday wiilkii marka maadaama oo aan sidaa sameeyay asagiina ilamu hadlinin ana lama hadlinin ma fahamta ana danahaygiyo ninka shukaasan karo ila naag xoraba ahay baa iska shukaansanay ma fahamtid danahaygaan watay laakiin inay amaan isiyaan telefonkayga ka dhamaadaanin ma fahantay baa rabaa su'aalaha soo socda marka waxay lacagta ka baxday ma dib bay kugu haysaa su'aasha kuwaad waa horta xaasha kulila lacagtaas aniga waxa u keenay reasonka inaa cadeeyo ninkaas inay wax laga dhameeyo oo joogtaa uma hayso oo igu haysaa may dhibigu ma hayso runtii wax adoo oo laga duubay wax video laga duubay jiraan maya xaasha kulila no wax dhibaato ay ku geysteen ma jiraan Harun leewaay iyo Wispi way ii geysteen because nin alaali ninka la sheekaystaba waxa leeyahay naagtaas nimankaana haystay u xiran tahay okay il badan ba ka dareemay marka telefoonku hadlayni sida qof oo yayo kale maxaa ka oysinay dareenkaaga maxaa ku dhibaataynay xanuunka maya runtii macnaha de marka adigoo qof dumar laga xishoon waayo oo la damco in khasab adiga lagu soo afduubto ma fahanti in adiga khasab lagu afduubto oo madii ilaahay ala sheekaysan lahaydna la dhaho naagtan anaga lugta nooga xiran tahay lagu dhaho aniga taas live ka keentay inaan soo galo telefonkaaga wax ku jira ma la baxay telefonkayga jeep bay ku xirteen they listen to me ma kuma dhageysan karaan laakiin wax may kala bixin email-kaaga la hayaa anita qofka markii location-kiisa uu furto arintaas ani waxay igu dhacday markaan Wispi la hadlaayay bay igu dhacday maya su'aalaha iga jawaab waxaan dareemayaa as a body language markaan kula sheekaysanayo problem baa ku haysta xogaana dumar baa tahay waxba kale leexanaysaa mi email-kaaga wixii ilaahay igu email-kaaga miyaa Wispi haystaa telefonkayga WhatsApp-kayga wuu hayay telefonkayga caadiga ana wuu haystay labadaba wuu haystay Wispi maxaan hadda ku maxkamadaynaa oo qalad ka galay waxa ku maxkamadaynaysan inuu dabadayda ka haro ammaan isiiyo Harun leewaay maxaan ku maxkamadaynaa asagana waxa ku maxkamadaynaysan afaarahayga iyo telefonkayga iyo sheekooyinkayga inuusan dadka la sheer garaynin u bixinin ammaan ani waa soo laabana nuqu meelaha ka maqlo waa ku soo laabana alimo ata tuutkaaga waxaan ka dareemayaa dib badan oo ku haysta aniga psychology anahay in stress badan oo ku haysto lagu sameeyay ayaan attitude-kaaga iyo body language-kaaga ka dareemayaa wallahi oo billahi oo tallahi aniga fiiri waxaan ka baqaya caawa aniga haddii xataa xabad laydhaho waa lagugu dhufanaa naa geesiyadaba ahay horta alxamdulilah kow
aniga stress intaa ileegama hayo laakiin waxaan la yaabanahay naag 3 years laga hortaagan yahay nin alaaliya ninkay rabto inay la sheekaysato hadda wiil baa isla soconaa saacadaas aan kula wasbiyan wacaya waxaa soo saari kartaan hadda Haaruun Leewaayo soo qabta oo soo jooga soo saara Haaruun Leewaayo soo saara hala soo qabta Haaruun Leewaayo